بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وناكسن walaalyaal saaxiibayaal gacalayaal meel kasta ay joogtaan oo walaalkiin maxamed maare maanta taariikhdu waxay tahay 8 bisha Maarso 2020 taariikh tirsiga meelaadiga maanta oo kale adduunyada waxaa la yiraahdaa hal la xuso maalin loogu magac daray haweenka adduunka inay leeyihiin oo la yiri 8 Maarso waa maalinta haweenka adduunka laakiin taas inagu waan ka duwanahay oo maanta wax ka duwan baan maartay rabaa inaan idin sheego wuxuu yahay haddii ay gaaladu maalin u baxsadeen haweenkooda annagu dad muslimaan nahay maalin kastana qiimaha haweenka waan xusi karnaa waanu leenahay oo maalin kasta haweenkeenu maalintoodii waaye waxaynu ognahay adduunyadan dadka saaran qof kasta oo horumar gaaray qof kasta oo heer gaaray qof kasta oo guuleystay qof kasta oo wax bartay iyo qof kasta oo meel ka soo baxayba in ay mustaqbalkooda iyo guushooda ay ka dambeeyeen haween ha noqoto hooyadii ha noqoto walaashii ha noqoto xaaskiisa ama ha noqoto gabadhiisa haweenka Soomaaliyeed haweenka muslimka ah gaar ahaan haweenka Soomaaliyeedna way nooga sharaf badan yihiin in la yiraahdo hal maalin hal xuso hal maalin hal la yiraahdo oo hal xusuusto hal yiraahdo maalinta haweenka adduunka aqliga saliimka ah ama aqliyada saliimka ahna wax qofka bini aadamka qaadan karo ma ahan dad muslimiin nahay diinteenu meel sare haweenka geysay ilaahay subxaanahu wa tacaala meel sare haweenka geeyay qiimo weyn buu u yeelay oo xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada loo wada ordayo wuxuu dhigay lugaha hooyada ayuu dhigay oo waa la inoo sheegay jannadiina waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkiina ayuu yiri nabigu muxuu ahaayay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu suurad dhan oo al-nizaa la yiraahdo oo ka hadlaysa qiimaha haweenka uu soo dejiyay sidoo kale waxaan ognahay qofkii ugu horeeyay ee nabi maxamed rumeeya sallallahu alayhi wa sallam inuu ahaa khadiijatu bintu maama khadiija bintu khuwayla oo ahayd xaaskii nabiga waxaynu ognahay qofkii ugu horeeyay ee kabcada dega inay ahayd haajara qiimo saas u weyn ba haweenku intaas iyo in ka qiimo badanba qiimo saas u weyn bay haweenku ku leeyihiin islaamka ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu kor ugu qaaday dadka islaam Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeedna boqolkiiba boqol waxaynu nahay dad islaama sidaa daraadeed waxaynu muhiim inaynu xusno in haweenkeenu maalin kasta leeyihiin maalin kasta qiimaha maanta loo yeelayo iyo xasuusta maalinta loo yeelayo inay maalin kasta leeyihiin inay maalin kasta naga mudan yihiin qurux sharaf maamuus iyo ixtiraam sababtoo ah mustaqbalkeena quruxdeena sharafteena intaba iyaga ka dambeeya wayna dhaleen wayna la dhasheen waynoo dhaxeen wayna dhali doonaa intaa iyo inka badan way noo qabteen qof kasta oo maanta mustaqbal adduunyadan ku lena iyo qof kasta aan guuleysan xataa u fiirso dadka oo aan guuleysan oo nolosha ka dhacay haweenaa gacanta ku haya waxaa la raadinaya inay guuleystaan kan guuleystan haween baa ka dambeeya ama xaaskiisa ha noqoto ama hooyadii ha noqoto ama gabadhiisa ha noqoto ama walaashiisa ha noqoto sidaa daraadeed haweenkeenu gabdhaheenu way nooga qiimo badan yihiin wax kasta hooyooyinkeena ku jira haweenka hooyooyinkeen maalin ma xasuusan karno 8 Maars ma oran karno maalinta hooyooyinka adduunka waa maalinta haweenka sababtoo haweenka hooya ku jirta hooyadeen wayna dhashay maalin kasta inaan xasuusanaynaa salaad kasta aynu tukanno waynu ducaynaynaa waynu xasuusanaynaa sidaa daraadeed aynu iska ilaalino xuska maalmahan oo kale maalmaha noocan ah diiniyan xataa wax qurux badan ma ahan sababtoo dad islaameynu nahay waxa muhiim ah inaan ku dhaqanno sida ilaahay iyo rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam ayna fareen waa maasantiin saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxaan idinku boorinayaa inaad ka digtoonaataan maalmaha noocan oo kale asxaabtiina sii gaarsiiya muuqaalkan si ay u ogaadaan qiimaha haweenka inta aan ogeyn waxaan ogahay dad badan oo og qiimaha haweenka dadka dhan ma wada xumo laakiin inta aan ogeyn gaarsiiya si ay u weyneeyaan maalin kasta gabdhaheena Soomaaliyeed waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh